هاي حشي قفتي إنه بحين كروان عكتي نمانك إنفستر كهاي إنترست كسوقينا إنay heli waayeen lacagtoodii ballanqaadka ku bixiyeen marka waxa asaas u ah dadkii deynta la siiyay oo iska bixin kar waayay interest rate-ka isbedelay awgii shaqadii ay hayeen oo u saamax weeday inay bixiyaan lacagtii marka waa lacagta dhaqaaluhu saasuun u wareegaa marka runtii asaas waxa weeye qofkii deynta qaatay baan iska bixin karin maanta وأنا جورجي وكلام مركا ولوس كرينيا. وقت هذا ما صنفاي عندي بوصل وانو رشيد financial service شركة دينا رشيد financial service بريها النبوة حلقة وانا اسكت ضايدين حق جوريا يمكن أضطك ويبسان. ضطك جوريها يبسان يعني مقوان عادي هم أفق وصوهل يوميا سوى قوان ضطك حلقة حراشة يبسان. لبعض وقع وانا ضطك إن جوريها يبسان. waayo mujtamaceena hadda waxa suurtagal ah fursad aad u wanaagsan baa u furantay taasoo ah maadaama guryihii ay jabeen qiimahoodii dadkeena inkamkiisuna oo meel dhexdhexaad u badan yahay ama inkam yara hooseeya waxay awood u helayaan inay iibsan karaan guryihii oo jaban 50,000 60,000 70,000 ilaa inta sarixad male marka qofkii inkamkiisu meel dhexaad ahaa waxay u suurtagelaysaa gurigu iska bixin karo oo almost lamida karada oo maanta bixiyo ama ka sii yarba inuu iibsan karo waxay u saamaxaysaa inuu ka tanaasuli karo karadu bixin jiray waxay u saamaxaysaa inuu guri ka weyn ku jiro oo carruur badan ba dadkana badi leeyahay nafisa ay heli karaan waxay u saamaxaysaa inay xor noqdaan gurigooda American dream macnaheedu waxa weeyaan gurigaaga iyo dhulka ku fadhiya adaa leh waa adigan arkay oo marka doorashada dadku u tartamayaan waxay ka hadlaan aad iyo American dream wax la yiraahdo taa macnaheedu waa maxay inaad gurigaaga iyo gudihiisa xor tahay inaad hub dhigan kartid inaad sharciga u jibin baa laga rabaa laakiin American dream waxa weeye inaad guri aad degan tahay xor u leedahay oo geedkaaga xiran kartid waxay ka mid tahay marka fursadaas maanta Soomaalida waxaan ugu bishaareynaya inay istaabulshayaan oo inta guryuhu jaban yihiin maanta ay ka faa'iideystaan kuwa xaraashka waa la helayaa kuwa xogaa yar dib habeen u baahan baa la helayaa waxa kaloo furantay baanan badan oo sida islaam shariicada muslimku qorayso lacagta ku bixinaya oo la ridaa baa jiro hadda anigu aan la shaqeeyaa oo runtii boqolkiiba 10 konton hadad ku iibsanaysid 10% waa $5,000 bay ka rabaan oo dhan payment waxa kaliya laga rabaa inaad shaqo aad haysid arrimaha credit-ka iyo waxaana tii anaga xafiiskay marka tiraadid wadadii loo mari lahaa aad toos ah ku tusaynaa sida credit-ka loo hagaajiyo sida credit-ka looga soo baxo shuruudihiisa sida credit-kaaga loo dhiso sida deynta loo apply gareeyo baaranka islaamiga iyo baaranka caadiga ah marka waxaan ugu deeqayaa Soomaalideena magaalada Minnesota degan inaad hadda ay furan tahay fursad wanaagsan oo guryuhu ay ku iibsan karaan waayo qiimihii hoos u dhacay awgeed aad baad maasantahay qofka doonaya inuu guri iibsado marka uu ku yimaado xagee baad uga bilaabaysaa waxaan uga bilaabayaa horta dee waxaa jira inaad baaritaan degdeg ah oo xoogaa dusha ka eegtid inuu yahay qof ballanqaad geli kara oo iska bixin kara hadduu ama hadal ka qaato bangiga islaamiga ama bangiga caadiga ah waayo haddaan anigu u sheego waad helaysaa inakeen guriga kusoo tusay oo hadhowto maaragtay lacagtii la waayo xoogaa arrintii qalbi jab bay ku noqonaysaa qofkii marka maadaama aan khibrad dheer u leeyahay oo aan muddo ka soo shaqaynayo oo Maraykan oo dhan ilaa Alaska ilaa iyo New York dadka deganaan guryaha ka caawinaysay ku iibsan lahayn anigoo bangiga caadiga ka shaqeeya marka waxaan aqoon dheeraad u leeyahay inaan markiiba qofka u sheego talaabooyinka ugu fudud oo u saamaxaya wadadu ku heli lahaa guriga ama cash ku iibsanayo ama lacagta cid ka soo qaadanayo haddii uu banka caadiga ka soo qaadanayo iyo haddii uu islaamiga ka soo qaadanayo wada aad baa maasafay qofku isagu miyaa marka hore guriga raadsada oo xaafadu degaya ka soo helo se waxaad u soo dhigtaan sawirradii guryaha iyo xaafadaha iyo meelaha ay ku yaaleen waa su'aal wanaagsan waxaan anagu nasiib wanaag access u leenahay ama aan gacanta ku haynaa xaafad kasta xaafad alaale iyo xaafad rabo
inaan u fiirin karo isagoo arkaya inta guri iiba xaafadda ama xaraash ha noqdeen ama guri aan xaraash ahayn ha noqdeen ama bangi guryuhu leeyahay oo dadka ka qaaday ha noqdeen ama kuwa dawladdu dadka ka qaaday ha noqdeen wixii oo dhan gacantaan ku haynaa marka qofkii la fadhiya xaafaddu rabo inuu dego South Minneapolis North Minneapolis Hopkins iyo sabaroonka u dhowdhowga qofkii markuu farta ugu fiiqo halkaasaan rabaa inaan deganahay guriga intaasoo qolaa rabaa guri sanadka la dhisay baan rabaa guri dhul caynkaasi ku yaalaa rabaa marka choice waa badan yahay marka markiiba qofka waanu tusaynaa haddii lahaydo oo gacantaan ku hayo waan gartay aad baad mahadsan tahay guryahan marka xaraashka ah iyo qofkii laga xaraashay iyo guryaha caadiga ah iyagoo isku mid un qofka hadduu iibsanayo qofku hadduu iibsanayo isku mid horta waxa kala fiican guri qof degan yahay qofkii lahaa iska iibsanayo iyo guri xaraash lagu kala qaatay waa yara kala fududahay processka loo maraa waxa qofku guriga markiiba laga qaadi karo sharciga state Minnesota u yaala waxa weeye guriga haddii foreclosure lagu sameeyo waxa weeyaan ilaa mudday qaadataa inta gurigii furihiisa qof kale lagu wareejinayo waayo process dheer baa ka dambeeya qofka guriga degan xuquuq buu leeyahay marka xuquuqdiisa sharcigu tixgeliya marka waxay qaadataa sanad ama in ka badan inta gurigii qofkii ka faaruqayo talabaad qof guri laga qaaday waa careysan yahay xogaa dhaawac guriga u geeystaan oo hadhow qiimihii suuq ka joogay hoos buu uga dhacaya marka dee gurigana usually waxa iibsado dib u qaata banka bangiga baa markaa ku raadiya bal wax ka iibsado lacagta ugu badan ee ku heli karo anaguna kambaniga iyo Rashid Financial waxaanu tee gacanta ku haynaa baanankii systemka maaragtay guryaha lagu kala iibsado oo dadka oo dhan ka dhaxeeya dadka professionalka ah real estate agent-ka ayaanu access u leenahay oo markiiba aanu ka eegna qofka guriga rabo qiimaha ku rabo iyo meesha ku yaalla waan gartay ka soo qaad qofkii inaad guri u heshay oo guriga iibsaday marka kadib maxaa qofkaasi uu lacabsiga jacaylkiyo kalcayntanigu helay cajaab iyo la yaable lacabsiga jacaylkiyo kalcayntanigu helay cajaab iyo la yaable الله على عشق علفك وعنا عيدي دلكيجي عردي